السلام عليكم dhegeystayaal meel walba aad joogtaan iyo si walba maqalka iyo muuqaalka Daafur TV oo idin soo gaarayo ku soo dhawaada warka Daafur TV degmada Gaalkacyo xirsi Yuusuf Barre iyo sidoo kale taliye ku-xigeenka ciidamada booliiska maamulka Galmudug Korneel Cabdi Jaamac Cabdulla Xabeeb oo si wada jira magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug kula hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen in ay socdaan baaritaano ku aadan sidii ay wax uga dhaceen magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxa ay sheegeen in ay si weyn uga xun yihiin dil wadareedkii xalay Gaalkacyo loogu geystay dad shacab ah oo la sheegay in ay ka soo kala jeedeen deegaanada maamulada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Hirshabeelle taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska maamulka Galmudug Cabdi Jaamac Cabdulle Xabeeb ayaa waxa uu sheegay in ay ku raajoogaan kooxihii ka dambeeyay falkaasi lagu dilay 9 qof oo shacab ah iyo sidoo kale dilkii kale ee loo geystay Cali Dhiif oo ka tirsanaa ciidamada nabad sugidda maamulka Galmudug inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun xalay magaalada Gaalkacyo waxa ka dhacay 2 shil oo fool xun nisirka la dilay waan ka tacsiyeynaa ilaahay ha u naxariisto cidii dishayna waan daba galeynaa waxaan kaloo arintaas ka sii dambeysay mid ka sii fool xun dad badan baa la laayay oo ka soo jeeda Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ayakana waan ka tacsiyeynaa dad wax ma garataa baa laayay waxaan ka raalinahay maaha ka maamul ahaan dadkaani waa dadkii nolol noolaa ilaa iyo 20 sano ka badan oo dadkan ku milmay aad iyo aad baan uga xunahay wixii dhacay eheladoodii iyo maamulada ay ka soo jeedaan waa uga tacsiyeynaa samir iyo iimaan Allah naga siiyo ka maamulka Galmudug ilaa heer madaxweyne waxaan rabnaa inaan dadka reer Koonfur Galbeed iyo reer Hirshabeelle u cadeyno arintaas waa tilaaban ka qaadaynaa waxaan rabnaa inay isdejisaan inaan saxmad la kicinin oo la isdejiyo arinta waa lagu daba joogaa waad ogtiin meeshan dadkan waa dadkii markii meel kale ka soo qaxdaan aad u soo qaxdeen weeye wixii dhacayna annaga u joogna hadii Ilaahay idmo inaan wax ka qabadkeeda inta wax garadka oo dhan baa ka xun waana la dadaalhayaa waxaan codsanaynaa oo mar labaad iyo mar saddexaad codsanaynaa dadka reer Koonfur Galbeed khaasatan in kacdoonka la joojiyo waxaan ka tacseenaynaa shilalkii xal ka dhacay Gaalkacyo oo ugu horeeyay sargaalkii lagu dilay Gaalkacyo ay ka dambeysay dad badan oo shacab ah oo la laayay waxaan markaa uga tacseenayaa maamulada ay ka soo jeedaan Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed waxaan leedahay samir iyo iimaan Allah naga siiyo dhamaantay way naga wada dhinteen dad aan aqligooda ehel u ahayn baana waxa geystay waxaan leenahay ayagana jannadii Allah ka waraabiyo eheladii ay ka soo jeedeen samir iyo iimaan Allah ka siiyo dhamaantood sargaalka dhintana waxaan leeyahay isagana jannadii Allah ka waraabiyo asagana gacan ka xaq daran baa dishay dadkan reer Galmudug bay ahaayeen waa dad ehela ah waa wiil iyo walaal iyo xidid iyo xigaalo raalli kama nihin wixii xal dhacay waxaan raalli ka noqon karna maaha sargaalka dilkiisa raalli lagama noqon karo kuwa ka horeeya la laayay in inta la laayo lagu badbaado raalli lagama noqon karo ayagana inta la laayo la sugo raalli lagama noqon karo ugu dambeyntii mas'uuliyiintan ayaa waxa ay sheegeen in aysan dhici doonin in kooxihii geystay dilka Cali Dhiif iyo sidoo kale shacabka inta badan aysan ku dhuumaalaysan doonin magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug isla markaana ciidanka Galmudug ay ku jiraan howlgal weyn oo ka socda magaalada Gaalkacyo kaasi oo ay ku baadi goobayaan ama lagu baadi goobayo dadkii ka dambeeyay dilalkii kala duwanaa ee xalay magaaladaasi loogu geystay Cali Dhiif iyo sidoo kale